sanadii 9 Hijriga, wuxuu ku aadanaa maalinkii uu Nebigu ka soo laabtay Ghazwatu Tabuuk. Ghazwadan waxay leedahay magacyo badan. Waxaa ka mid ah Ghazwatu Tabuuk oo loogu magac daray bartii dagaalku uu ka dhacay oo ahayd Caynu Tabuuk. Sidoo kale waxaa lagu magacaabaa Ghazwatul Usra, waxaana loogu magacaabay dhibaatada iyo mashaqada soo wajahday muslimiinta darteed xilligaas oo jawiga aad u kululaa. Waxaa ku dartaa sahan yarida iyo dhererka masaafada ay soo jareen muslimiinta. Ghazwatu Tabuuk Al-Faadixa. Sababta loogu bixiyay magacan Al-Faadixa waxay ahayd in Ilaahay ku fadeexeeyay munaafiqiinta, warkoodiina uu bannaanka soo dhigay. Ghazwadan waxay dhacday bishii Rajab sanadii 9 Hijriga, kadib markii boqorkii Roomaanka uu dilay fariisidihii Rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu u diray Room, taasoo Islaamku ugu yeerayay. Kadib wuxuu guda galay inuu diyaarsado ciidan si ay muslimiintu ugu soo duulaan. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu khabarkaas soo gaaray, wuxuu iskugu wacay jihaad si ay uga hortagaan Roomaanka intaysan soo gaarin Madiina. Rasuulka iyo saxaabadu way soo baxeen, tiradooduna waxay ahayd 30,000. Intay jidka soo socdeen, waxay soo mareen Waadil Quraa oo ah meeshii ay ku noolaayeen qawmu Thamuud, uuna Ilaahay ku halaagay. Saxaabada qaar ka mid ah waxay ka soo dhaansadeen biyihii magaaladaas, cajiinkoodiina way ku qasteen. Laakiin Nebiga sallallahu alayhi wasallam wuu ka reebay inay ka faa'iidaystaan meel lagu cadaabay dad Ilaahay ku caasiyay, wuxuuna ku amray inay ka soo tagaan biyihii ay ka soo dhaansadeen iyo cajiinkii ay ku qasteen halkaas. Saxaabaduna way qaateen amarkii Nebiga sallallahu alayhi wasallam. Kuleylkii aadka u darnaa iyo haraad dartiis, saxaabadu waxay u dhib sheegteen Nebiga sallallahu alayhi wasallam. Kadib Alle ayuu bariyay, samadiina roob ayay ku qaboojisay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabada. Markay soo gaareen Tabuuk, Roomaankii way argagaxeen oo Ilaaha qulubtooda cabsi ku tuuray. Dagaalkiina way iskaga laabteen. Sidaas ayayna muslimiinta ku guuleysteen, waxayna soo laabteen 26 Ramadaan. Ghazwadan, Ghazwatu Tabuuk, waxay ahayd ghazwadii ugu dambeysay oo Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka qayb galo.